waa xikmado xulaya maankaaga haddaba caqligaaga uga dhigdhiga ee ha noqon dhabeel dhigaysa xikmadahani ma ahan in waxyaabaha muhiimka ah ay marnaba u suurtagelaya inay marti u noqdaan waxyaabaha amarnimo muhiimka ahayn Allah subhanahu wa ta'ala inama abuurin in aan qaadano go'aano sax ah ama kuwa qaldan balse wuxuu noo abuuray in aan go'aan qaadano kadibna wixii qaldan aan saxno saddexda wax ee lama huraanka u ah hanashada wax kasta oo qiimo leh waxa kamid ah 1 howlkarnimo 2 adkaysi 3 garaad fiican markii aan akhriyay taariikh nololeedkii dadkii guusha gaadhay waxaan ogaaday guusha ugu horeysa inay ka gaareen naftooda xakamaynta nafta ayaa wax walba ugu horeysay raaligelinta dadka waa yool aan la gaari karin waxaa jirta hal tayo oo qofka looga baahan yahay si uu u guuleysto yacni uu hanto himiladiisa waana inaad lahaataa yool taasoo aqoonta waxaad rabtay jamashada guushaada ku xiran cudurdaar ma dili kadid inaad rumaysato in cid kale noloshaada horumarkeeda ay mas'uuliyad ka tahay waxaad cudurdaarka dili kadhaa markii aad 100% naftaada mas'uul ka noqoto oo aad tiraahdo tasho qofba alla ka dhigay midda ugu weyn ee la ka rabo dhamaanteed ayaa waxay tahay inaan xikmadaha ku dhaqanno ee aan noqon kuwa dhageysa kadibna uga dhaqaaqa meesha ay ku dhageysteen